السلام عليكم صحابتي soo dhawaada maanta waxaan idin wadaa nafaqo timaha u fiican soo dhawaada meeshaan waxaan ku haystaa baamiye aan biyo ku soo kululey wax yar biyo ku kululey wax yar oo yani kuleel yar dabka la tusaysa waxaan kala korka ugu soo darsaday saliid qumbe ayaan korka uga daray waa ku dhalaaliyay markaan dabka soo dejiyay ayaan ku dhalaaliyay kabacdi isku qaboobeen hadda saanay ku soo noqdeen haatood waxaan ku darsanaynaa ukun maxaad korka uga dareynaa iyo jeex basal aan jarjari doonaa maxaad laba xabo tuun baamiyaha ma badan aniga hadba adiga inta jeceshaa ku darsan kartaa iyo hal xabo moose intaas aan isku soo daray maxaad isku shiideynaa insha Allah hadda waa isku jarjaray basal soo jarjaray mooska soo jarjaray iyo tuuntii sidoo kale waa jarjaray iyo xabada ukuntaada waan isku daray baamiye iyo saliid qumbadii ayaan ku daray saas ugu walaaqay kadibna waan isku shiidi doonaa kadibna waxay isku soo bixi doonaan kareem timaha la marinayo oo masha Allah waa kana saxaabe saan ayuu noo soo noqday alaabtii markaan isku soo shiidnay kulli kareemkaas meesha ka soo baxay masha Allah timaha marinaysa oo ku masaajeynaysa inta saacadooda doontida ayaad ku haysaa markaas kadibna shaambeer ayaad ugu dhaqaysaa isbuuc laba mar haddaa ka marsatid alaabtaaneeto timahana way ku baxayaan wayna ku jilcinayaan qofka timo jilcan jecel inay u noqdaan timihiisa wayna ku bixinayaan masha Allah timaha maxay xoog leh way noqonayaan nafaqo siinayaan waxa dhanba waa dabiici masha Allah saxaabteedu ku soo dhawaada inaa ka heli doontiin rajeena saliid qumbe baamiye dhowr xabo adiga inta doonto ku darsan kan 10 xabo camal aan shiitay xabad kun xabad moos iyo toon yar jeex basal aan isku darsaday laakiin aan inta doonto ka dhigi kartiin saxaabe ku soo dhawaada ila garaya barnaamijka subscribe inta u saarantaan kaga mahad celinaa soo dhawaada walaalahayga